kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid noqon doona ururka al-shabaab oo weerar 4 gaari oo qaraxa ku biloobay ku qaaday deegaanka Awdheegle sidoo kale ururka al-shabaab oo laba jibaaray dagaaladii ay ku qaadayeen gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee gobolada dhexe ee Soomaaliya dhinaca kale qodobada aad warkeena saaka ku maqli doontaan oo xasaasiga waxa kamid noqon doona Somaliland oo la aqoonsan rabo sidoo kalena Mareykanka uu ku baaqay in Somaliland si degdeg ah loo aqoonsado muxuu ka damacsan yahay maxaa uu sabab noqday xilligan in Donald Trump Israa'iil in dalka Mareykanka iyo Israa'iil ay xoog saaraan in Somaliland saacaan loo aqoonsado sidoo kale Israa'iil iyo Ethiopia oo ka hadlay arrimaha Soomaaliya talo maxaa ka galay maxay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya Israa'iil iyo Ethiopia qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan oo ay ka marneen dagaalkii baana ee ka socday buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland maxaa u dambeeyay qodobada iyo kuwa kale aad maqli doontaan fadlan hadii channelka subscribe ku ahayn waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada mar kale aad ayaad u mahadsantahay dagaal 4 gaari oo qaraxa ku bilowday hayay saakay ururka al-shabaab ee dagaalyahanada Soomaaliya ka dagaalamo waxay ku qaadeen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo weerarka u socday saacado kooban ayaa haddana ururka al-shabaab waxa halkaasi difaac adag ay kala kulmeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaankaasi Awdheegle al-shabaab ayaa waxa ay aroornimadii hore ee saaka weerar baan ku qaadeen degmadaasi Awdheegle xer ciidan oo ay deganaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo halkaasina iska caabin kulul kala kulmay hase ahaatee ugu dambeyn dawladda iyo ciidanka halkaasi ku sugan ayaa ku gacan sareeyay weerarkaasi iyo ururka al-shabaab halkaasi lagu hokiyay qasaaraha u geystay sidoo kalena dawladda ayaa labada dhinac ee al-shabaab iyo dawladda ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalkaasi Awdheegle saaka ka dhacay Awdheegle ayaa xudun mar walba ururka al-shabaab ay weerar baan ku soo qaadaan iyagoo 2019 ilaa iyo hadda ku qaaday weerar gaaraya ilaa iyo 8 weerar oo kala duwan bisha barakeysan ee Ramadaan ay ururka al-shabaab inta badan waxa ay laba jibaaraan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada dawladda fariisamaha ay ku leeyihiin sidoo kale kuwa midowga Afrika ee gacanta ka siinaya dagaalka ay ururka al-shabaab kula jirta dawladda federaalka Soomaaliya hase ahaatee dagaaladan ayaa wajiye kala yeeshtay iyadoo ay ku soo biireen ciidamada deegaanka kuwaas oo loo bixiyay macaawsle dagaaladan ayaa badankooda waxa ay mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ka dhiciyeen gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyadoo weerarka badankiisa sidoo kalena ciidamada deegaanka ay iska caabin kala kulmiyeen ururka al-shabaab sidoo kalena gacan ka helayaan dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay ahayd markii ururka al-shabaab ay dagaal ku soo qaadeen deegaanka Ceel Cali Axmed oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Biicade hooyadana ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe taas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa ciidamada macaawsleyda ama kuwa deegaanka ay dagaalo baan kula dhaxmareen ururka al-shabaab ugu dambeyn halkaasi ururka al-shabaab ayaa ka baxay iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay la sheegay in al-shabaab ay dib ugu raqaansadeen deegaanadaasi ay dagaalka baan kula galeen dawladda federaalka Soomaaliya deegaanka Ceel Cali Axmed iyo Biicade ay al-shabaab ka bixeen isbuucii la soo dhaafay iyagoo dadka isugu yeeray meel banaan ah oo sheegay in ay ugu baxayaan tactica sidoo kalena dagaalkaas ay ka damacsan yihiin in ay xeeladeeyaan sidoo kale waana ay ahayd markii ururka al-shabaab sidoo kale hotel Qaahira oo ku yaala galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ku qaareen weerar ku bilowday qaraxya ugu dambeyn ay gudaha u galeen 4 askari oo ka tirsan ururka al-shabaab halkaasina muddo 24 saac ay ka dagaalamayeen iyagoo halkaasi ku diray 3 nabadoon iyo 2 askari oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ugu dambeyn ururka al-shabaab ayaa si nabad ah uga baxay hotelkaasi Qaahira iyagoo magaaladaasi habeenkii arbushaad ka sameeyay weerarna ku soo qaaday ciidamadii halkaasi ku sugnaa kadibna ciidamadoodii si tartiib ah ula baxay iyadoo su'aalo badan la iska weydiiyay sababta ay ciidamadaasi halkaasi nabad ugu baxeen iyagoo ka dagaalamay muddo dhow ku gaaraysa 24 saac dhinaca kale Somaliland ayaa Mareykanka waxa uu aqoonsanaya dal madax banaan oo ka go'an Soomaaliya inteeda kale taa ayaa Somaliland guul u ah shacabkeeda iyagoo muddo gaaraysa 40 sano ku haminay inay maarin loo aqoonsado dal madax banaan Somaliland ayaa arrinkan wali aan ka hadlana hase ahaatee wakaalada AB ayaa sheegtay in Mareykanka uu aqoonsanayo Somaliland balse waa shardi
ku xiran balse shardiga ku xiran ayaa ah in Somaliland ay aqbasho in loo soo raro dadka Falastiiniyiinta ee degan marinka Gaza halkaas oo ay dagaalo ba'an iyo duqeymo ba'an ka geysata Israa'iil dhulkaasina Israa'iil la siiyo Gazana loo soo raro halka iyo Somaliland Soomaaliya ayaa Mareykanka waxa uu kala hadlay in Gaza la keeno ama dadka reer Gaza loo soo raro Soomaaliya iyo Soomaaliya diiday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hadlay ayaa arintan ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya xilligan aysan aqbali karin in dhulkeeda reer Gaza loo soo raro sidoo kalena Somaliland la aqoonsado isagoo ku baaqay in reer Falastiin ay leeyihiin dhulkoodan xurriyadooda loo siiyo sidoo kalena faraha looga qaado halka Israa'iil ay dhulka raadinaysa halkaas hase ahaatee Mareykanka ayaa arintan ka dhagaaday waxa uu mar kale qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cirro isagoo kala hadlay arintan in Somaliland ay ku bedelato ictiraaf madax bannaan Soomaaliya inteeda kalena ay ka go'do hadii ay arinkan aqbashana ay shardi tahay in reer Gaza loo soo raro Somaliland oo Somaliland ku adkaan doonto sidii ay ku aqbali lahayd maadaama ay ictiraaf doon tahay muddo gaaraysa 40 sano haddana inay isku aqbasho in reer Gaza Somaliland la keeno sidoo kalena ay ictiraaf bedelkeeda hesho daawadayaal dhinaca kalena buuraha Calmiska dagaalkii ba'naa ee ka socday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu hogaaminayay ayaa halkiisii ka sii wada iyagoo dagaalo ba'an ay buurahaasi ku dhaxmareen iyo ururka Daacish ay in Soomaaliya u aqoonsadeen oo qaraaban yihiin Saciid Cabdullaahi Deni si weeraradan loo qiyaasay ahaatee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo kaashanaya shacbiyada ay dadka reer Puntland u qabaan in lala dagaalamo ururka Daacish ayaa ka faa'iideystay dareenkooda iyagoo sigoo dagaal ba'an kula jiro guuro la sheegi karo oo la taaban karana ka gaaray dagaalkaasi ay Puntland kula jirto ururka Daacish daawadayaal halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa qodobada kuwa ugu muhiimsan hadii wararka ugu dambeeyay ee ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen awdhiigle dhowr saacadood ka hor saaka aroortii wixii ka soo korona halkan ayaad kala socon doontaan hadii channelka subscribe ku heen muuqaalka subscribe like saar sidoo kale channelka subscribe saar kana mid noqo saaxiibadayda ugu xiran aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar kale